madaxweynaha cusub madaxweynaha Soomaaliya madaxweynihii 10aad Xasan Sheekh Maxamuud tareenka aad wado oo dhahda tareenan wada tareenkaas yuu naga tagin marka koobaad munaasabad lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadan oo ay qabteen dhalinyarada beesha Cormale oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada haweenkii odayaasha dhaqanka beeshaas qaar kamid ah odayaasha dhaqanka beesha oo ka hadlay munaasabada ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub waxaana ay sheegeen inay garab taagnaan doonaan beesha madaxweynahana si dhow ula shaqeyn doonaan sidoo kale waxa ay qaar kamid ah dhalinyarada tilmaameen in madaxweynaha cusub la shaqeyn doonaan ayagoo ka dalbaday in ilgaara uu ku fiiriyo dhalinyarada beesha dhaweyntan quruxda badan waxa loo sameeynayaa madaxweynaha cusub madaxweynaha Soomaaliya madaxweynihii 10aad Xasan Sheekh Maxamuud xasan oo Cormale ku soo dhaweynay oo hoolkan iskugu imaaday hoolkan wuxuu kugu soo dhaweynaa Cormale madaxweynihii 10aad aad tahay tareenka aad wado oo dhahda tareenan wada tareenkaas yuu naga tagin marka koobaad tan kale dawladda federaalka Soomaaliya waxaan ku leenahay hal sanatar oo sanatar aan ku leenahay malihin xuquuqdii dadka Soomaaliyeed uu leeyahay malihin waxaan degnaa Jubbaland waxaan degnaa Baydhabo Soomaaliya inta darfood ay ku taala meel aan degin malaha haddana dad xuquuqdoodii hor loo dunsadaana madaxweyne ilaahan kugu dhaarshay dumaraan ahay anigoo dumar kula hadlaaya waxaan ka hadlayaa markaan dumarnimo u hadlayaa gabarnimo u hadlayaa waxaan u hadlayaa anoo gabarnimo u hadlaaya tareenkaaga inuu naga tagin oo dhinac walbana naga fiiriso mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa meesha waxa fadhiisa beel ku jecel oo aad ku qiimaysa oo ku jecel horumarkana jecel garab inay ku siiyaan jecel xoolo inay dhiibaan diyaar u ah xoog inay ku dagaalamaan diyaar u ah waxay ka sugayaan doorkii ay lahaayeen waxay ka sugayaan wasiirada ka sugayaan waxay ka sugayaan wasiir ku-xigeenka ka sugayaan waxay ka sugayaan agaasimo guud ka sugayaan waxay ka sugayaan labadii xildhibaan oo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ku kala maqan inaad hesho waxay ka sugayaan agaasimiyaal waaxid inaad siiso saraakiisha in loo magacaabo ciidamada saraakiil saraan leenahay korneelaan leenahay hal janaan la siiyaa ma jiro waxaan ka codsanaynaa in saraakiisheena la dalacsiiyo janaraal laga dhigo oo muddo intaas taagnaa xilna loo dhiibo oo beelweynta Cormale oo intaasoo gobol ah 5 gobol oo isku xiran iyo banaadir badegan mudane madaxweyne waxaan ka rabnaa in ma aragtay meeshaas waxay ku leedahay inay ma aragtay ka hesha xuquuqdeeda ayaan kaaga fadhinaa annaga ma aragtay dadkan dad dawlad jecel oo aad iyo aad u dawlad jecel waay dad yacni ma aragtay dad balaaya ma aha waa dad nabadeed waa dad diimeed aad baan kugu taageeraynaa wixii ma aragtay oo sax ah yacni ma aragtay oo daacada Ilaahay aan ka baxsanayn aan kugu taageeraynaa marka dawladdan hadda dhalatay waxaan ka filaynaa xuquuq banaanka taalo aan la difiri karin sidii inay wasiir aan helno wasiir buuxo inuu Cormale hore markii ugu horeysay taariikhda sidoo kale in diblomaasiyiin Soomaaliyeed aan wax ku yeelano sidoo kale in bahda garsoorka aan wax ku yeelano sidoo kale aniga midda aan sida gaarka isha u hayno waxa kamid ah gobolkan banaadir hataa xuquuq aan ku leenahay aadan u degnaa degmooyin badan ay qabiilka degan yahay maanta ay tahay maalin shaqo haddii intaan ay soo xaadirtay maalin jimcaha waxaan umaleynaya in 10,000 oo qof ay soo qayb gali lahayd gobolka banaadir hataa isha ku haynaa in xuquuqda aan keenno sidoo kale shaqaalaha dawladda hadda intaan ognahay waa dad yar aan ugu jiro dad yar tiro yar aad u yar ciidan aan fili doonaa sida aan sanatarka iyo dad kale iska wareysanay in boqolaal shaqaale dawladda soo Cormale la heli doono ugu dambeyntii warmurtiyeed ayay ka soo saareen kulankooda taageerida maanta ee madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud waxaana ay ballan qaadeen inay garab taagnaan doonaan madaxweyne Xasan Sheekh beesha Cormale waxay ka mid tahay beelaha deegaan ahaan u dega Jubbaland Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir beesha Cormale waxay u mahad celinaysaa baarlamaanka Soomaaliyeed labadiisa aqal kuwaas oo u xushay in mar kale dalkan uu hogaamiyo mudane Xasan Sheekh Maxamuud beesha Cormale waxay sidoo kale ku faraxsan tahay isbeddelka ka hirgalay dalkan oo hormuudka u yahay madaxweynaha 10aad Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane
xasan sheekh maxamuud. beeshu waxay madaxda qaranka ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ay ka codsanaysaa xuquuqdooda siyaasadeed oo 5 sano ee xukuumaddii asaga ka horeysay hogaaminayay maxamed cabdullaahi farmaajo aysan beeshu wax xuquuq aysan ku lahayn. waxay codsanaysaa beeshu xuquuqdooda oo dhammaystiran. waxay codsanaysaa madaxweynaha iyo golaha shacabka Soomaaliyeedba in ay helaan matalaadooda aqalka hoose oo maqan ilaa iyo intii dowlad dhiska Soomaaliya. beesha Coormale waxa ay ka maqan tahay dhammaan boosaska dowladeed ee hadda jira, hadday ahaato garsoor, hadday ahaato wasaarado, hadday ahaato saraakiil, iyo hadday ahaato manxooyin dibadda, iyo hadday ahaato safaarado. beeshu waxay madaxweynaha cod dheer ugu jeedinaysaa in beesha intaa tiro la-eg ee 6 gobol oo Soomaaliya ka mid ah degto ay xuquuqdeeda hesho. beesha Coormale ugu dambeyntii beesha Coormale waxay maaragtay u duceynaysaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu ilaahay xilkaas ku asturo uuna ka dhigo midkiisa mata bixin lahaa dalkan iyo dadkan. beesha Coormale ayaa ka mid ah beelaha deegaanada Jubbaland waxaana ay ka mid noqonaysaa beelaha Soomaaliyeed ee ballan qaaday la shaqeynta madaxweynaha cusub. Yaxye Maxamuud Maxamed, Shabelle TV, Muqdisho. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.